waxaan rabaa inaan kelmad ka iraahdo arrimaha taagan ee dalka oo runtii in badan oo idinka kamid ah waxaad la socotaan habeen hore waxa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dawladda federaalka iyo qaybo kamid ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda waxaan rabaa halka koow inaan ka sheego Puntland qayb kama ahayn waxa ka soo baxayna ma khusayso sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsanay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dawladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo dabcan dalkan waa dal jilicsan waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo waraysi uu bixiyay safiirka Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya ee hadda runtii la bedelay oo ka hadlayay maruu ka hadlayay golaha wada tashiga iyo in arrimaha taagan ee Soomaaliya laga wada tashado oo uu ugu baaqay Somaliland inay qayb ka ahaato ay timaado annaguna waxaan leenahay haddii la rabo 30 sano xasiloon la'aanta jirta ay tahay waxaan ugu baaqayaa Soomaalida oo wada jirta inay meel isugu timaado oo Somaliland ku jirto oo si dhab loo wada hadlo oo laga wada hadlo maxaa dalkan dan u ah inta la kala maqan yahay wixii la soo saaro waa waxaan miro dhalahay mowqifka Puntland horaan u cadeynay dastuurkeeda ku dhigan tahay waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira oo heshiis ah oo dimuqraadi ah oo federaal ku salaysan arrinta ku saabsan qaab dhismeedka dawladda ee hadda laga hadlay oo arrin khatar ah oo runtii cidii ku dhaqaaqday ee gaf ku ahayd maxaa yeelay arrimaha dastuurka u ah qodobada aasaasiga ah waa marka dastuurka la dhisayo dadka waxa ay ku wada heshiiyaan oo saldhigga u ah qaabka dawladda Soomaaliya ka aanayso nidaamka awood qaybsiga waa muhiim buu u yahay bulsho kasta oo meel degan bulshadan 60 sano ay xor ka ahayd waxaa jiray kalsooni darro ama faham darro habka dawladda Soomaaliya loo qaybinayo awoodaheeda ama awoodda dawladda sida loogu dhaqmaayo Puntland waxay ka digaysaa wax kasta oo aysan talageliyo buuxda laga gelin dadka Soomaaliyeed oo heshiis madal ah oo weyn aan lagu gaarin nidaamka parliamentary ah ee prime ministerka ah shirarkii dib u heshiisiineed ee Soomaaliya kii ugu horeeyay ee 19 ka qabsoomay Djibouti ilaa kii u dambeeyay ee ka qabsoomay Embagati iyo Eldoret dadkii Soomaaliyeed ee tirada badnaa isugu yimid ee noocyada kala duwan ah haddii aan lahaayeen odayaal dhaqan haddii aan lahaayeen jabhado dagaalkii sokeeye ka dhashay haddii aan lahaayeen dheergarad iyo aqoonyahan mar walba dukumiintiga soo baxay saas ku salaysnaa suuragal ma aha habeen madow dhowr qof inay bedesho wax suuragal ma aha ma dhaheeno waa aayad quraan oo munasal ah laakiin wixii lagu heshiiyo المسلمون على شروطهم الإسلام قاعد يدنا على الله يبغى وحي اللي جوه الشيء أي شرط مركل اللي بدله وإلا جوه ده الله حدنا سبب لو بدله من موقت هي ففعلها مدحوينه تاني مركو حلك يمد وكم مغنيس هبكو أول رقم أما هبكو أول رقم يحفيز كان رنتي وحقيب سجى ضد جارع أوليه كنت كرفال بدن بكوسمية awoodihiisii buu hoosgeeyay xafiiskiisa haddana si bareer ah ayuu wuxuu u yiri ma jiri doono marka waxaan leeyahay awooddaas madaxweynaha hadda la doortay dastuurkaana lagu doortay wuuna ku dhaartay waxaan ka rajaynaynaa inuu kan ku dhaqmo oo uusan ku xadgudbin haddii wax laga bedelayo dastuurka
dabcan qaybo la bedeli karo iyo qaybo aan la bedeli karin baa jiro qaybo xataa kuwa la bedelayo ee baarlamaanku bedelayo waddo iyo procedure loo maru leeyahay go-aan iyo farid go-aan ma leh dastuuri ama qaanuuniya golaha wada tashiga qaranka sida dastuurka ugu yaallo waxa weeye sanadkii mar ama laba mar inay shiraan oo arrimaha guud ee dalka ay iska wareystaan laakiin ma leh maaragtay awood qaanuuniya laakiin waxay leeyihiin waa siyaasiyiin wada tashi bay samayn karaan wixii ay isla gartaan hay-adaha dowladda inay mariyaan waaye sida saxdu tahay shirkii ugu dambeeyey aniga aan ka imid waxaa saas oo kale loo soo bandhigay awoodihii dastuurka oo intii la bedelay la rabo in anagu ansixino suuragalna ma aha awoodna uma lihin waxaa jirta baarlamaan weliba aan laba aqal ah weliba laguma kaaftoomin burburkii dhashay darteed in la yidhaahdo aqalka hoose keliya awood leh aqalka hoose wixii uu sharciyeeyo aqalka sare waa inuu ratifiyo isna uu markiisa sharciyeeya hadduu aqalka sare diido dib baa loogu celin aqalka hoose marka waxaas waxaa loo adkeynayay inaysan noqonin wax qof iyo labo siduu doono u ka yeelo marka waxaan aada u rajaynaynaa arrimahaas in si mug leh looga fiirsado soomaaliya siday hadda ku socoto waxaad moodaa inay runta ay u baahan tahay dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah oo aan ahayn sida wax ku socdaan awoodaha qaanuuniga ee hadda dowladda dhexe ay leedahayna runtii waddadii way ka leexatay puntlandna way caddaysay mowqifkeeda ah iyadoo raacaysa dastuurkeeda iyo kan dowladda federaalkaba inay si gaara u dhaqmayso inta laga helayo miirqab iyo wax heshiis lagu yahay arrintaasay puntland saldhiggeedu uu yahay waxaan rabnaa intaas soomaalina inaan ogeysiino caalamkana inaan ogeysiino maalmaha soo socdana guddigii ay dowladda puntland ay u saartay arrimahaas ayaa insha allah fariisan doona la wadaagi doona bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan doonaynaa insha allah in laga wada qeybgelin doono dhammaan dadka reer puntland masiirkooda iyo mustaqbalkooda hadday ahaan lahayd axsaabta siyaasiga ee hadda dhalatay iyo hadday ahaan lahayd dheergaradka iyo aqoon-yahanka kale iyo haddii ahaan lahayd dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan maxaa yeele waxa masiirka ah wuxuu u baahan yahay in fagaarayaal la keeno oo laga wada hadlo arrintaas waa arrin aanan anaguna ku degdegaynin cid kalena aysan ku degdegi karin insha allahu tacaala puntlandna mar walba waxay u taagan tahay midnimada iyo wadajirka soomaaliyeed waxay mar walba ilaalinaysaa isu soo dhowaanshaha bulshada soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haynaysaa khaladaadka dad gaara ay ka dhici kara in ay saxdo iyadoon xumaan ula jeedin waxaan u rajaynayaa marka ay tahay soomaalinimadana qeybteennan ka qaadanayna markay wax qaybsiga tahay iyo power sharingkana hadda puntland qeybta ay ka tirsan tahay inay mar walba difaacda diyaar bay u tahay qeybta ay ka tirsan tahay ilaaliso xafiisyada markaas sida gaarka ugu isman aysan noqonin cid walbo say rabta inay ka yeeli karto xafiiska hadda la leeyahay waa la baabi'iyey suuragal ma aha cid aan dadkeeda ahayn iyadoon lagala tashan in la iska baabi'in karo waana ka xumahay kuwa qeybta wax kale ee meesha fadhiyey sida ay u aqbaleen ama ay maaragtay ula qaateen kolley waa la wareysan doonaa markooda iyo meeshooda iyo madashooda waa laga wada hadli doonaa haddii ilaahay dadka kalena dee waxba kama khuseeyaan marka arrintaas waqtigeedaan u dayn doonaa ma raba inaan ka hor dhaco aad